gabadhii iyo aabaheed waxay isla gaareen guur subxaanallah guur ayay isla gaareen laakiin kadib waxaa dhacay fiidiyowga dhammaystiro si aad u ogaato kadib waxaa dhacay waayo gabadhan meher xalaala ayay ku dhalatay marka meher xalaala qofka marka uu ku dhashana si kasta ay wax walba u qaldoomaan ilaahay ayaa og inaysan dadkaani aysan jinsiyad kala ahayn maxram isku yihiin aysan isku galmoon karin hadhowtii jinsiyad aysan wadaagi karin marka waxaa dhacday gabadhii markay soo gabagabeeyeen arrintii familkii ayay u sheegtay hooyadeeday u sheegtay waxay tiri hooy ninkaasaa guursan hooyadii xataa way iska ilowday ayada nin kaley guursatay ilmo badan ayay leedahay ninkii hore oo guursan maadaama ay 3 bilood oo keli ah ay isqabeen markay isguursadeen aqoon weyna aysan isku sii lahayn dadkiisa iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa waxaas dhan aysan ogeyn gabadhi maamadii wayba iska ilowday waxay tiri hooy ninkaas ayaan guursan rabaa waan soo heshiinay ciddii ayay u keentay ninkii waa la keenay ninkii duqoobay siyaabo kale u ekaaday maamadii way garan weysay isma ay dhihin ninkaana ninkaagii ah waayo waqti badan ayaa kasoo wareegatay gabadhu hadda markaas da-aada waxay jirtay 23 sano ka hor ilaa intii caloosha lagu siday uurkeeda ay lahayd oo dhan intay koraysa intaas dhan way ilowday ninkii calaata xaal adi way soo heshiiyeen laakiin gabadhii waxay tiri hooy ninkaas hebel baa la dhahaa sidaas dadkii horena hadda waxaa laga yaabaa inay sii haybsan jirin hayb iyo waxaasna ay sii raaci jirin gabadhana markay inta la furay ee uurka yeelatay waxay go'aan ku gaartay inaysan ninkaas iyo raadkiisa iyo midna aysan qaadin waayo ilmihii wixii dhan ayay ka bedeshay magacii gabadhiina waxay siisay magacii adeerkeed marka in ay nin kale ay u dhashay ayay u sheegtay ninkiina uu ka dhintay ninkan kaloo adeerkeeda hadda ilmahan kale ay qaban ay og tahay inuu adeer u yahay marka waxaa dhacday oo kale in ninkii gabadhii ay heshiiyeen guur ayaa dhacay mehera la dhigay arooskii iyo wixii yaa la qaban qaabiyey ninkii wuu imaaday dadkii waa la isbartay kadib gabadhii iyo aabaheed markii la isku guuriyey oo la isku nikaaxay habeenkii gurigii arooska la geeyey oo laga soo laabtay ninkii iyo gabadhii maba isku hayaanba wax soo jiidasho ah oo nin iyo xaaskiisa camal ah wax dareena dhan iskuma hayaan ninkii wuu shakiyey ilaa iyo intii 7 lagu jiray ayuu sidaas ahaa gabadhii markii dambe waraysi ugu dhaqaaqay wuxuu yiri in ayahaaga hooyada magaceed in ayaheedii saddexana u sheegtay oo been ah hooyadeedu u sheegtay laakiin ninkaani wuxuu aqooday maadaama magaalada uu gabadhan uu ku guursaday ay tahay meeshii hooyadeedu uu ku qabay magacii hooyadeed markay u sheegtana ninkan uu dareemay gabadhan inay asagu dhalay oo naagtii heblaaye ee waagii ay kala tagayeen ay u dhashay kadib waxaa dhacday in uu ninkii gabadhii uu dareemay in uusan gabadhan aysan ka ahayn aan iraahdo ajaanib aysan ka ahayn sidoo kale wuxuu dareemay in uusan dareenimo iyo naagnimo midna uusan u aadin gabadhii ay u tahay cunugu asagu dhalo oo kale mase qof maxramkiisa oo kale ay u tahay kadib waxaa dhacday in ninkii uu baxay ciddii uu ku laabtay hooyadeedu u wacay hooyadeeday fariisteen in ayihii wixii u sheegtay asagana in ayihii u sheegay ayada laakiin maamada sidaas dhanba uma sii xasuusato uu u sheegay wuxuu yiri gabadhan aabaheed aaway waxay ku tiri aabaheed wuu dhintay oo nin hore i qabi jira ayuu ahaa wuxuu ku yiri runta ii sheeg gabadhan aabaheed meesha uu jiro iyo sida ay tahay ii sheeg waxay ku tiri maxaa adiga afaarahaas oo dhan ku galiyay waayo ay tiri aniga gabadhan dhalay aabaheed wuu dhintay ayaan ku dhahay gabadha waan ku siinay waa naga soo doonatay si sharaf aan ku siinay maxaa dabagalkeeda iyo aabaheed aaway cideeda aaw dadkeeda aaw afaarahaas dadka waxaas maxaa ku galiyay maamadii ninkii wuxuu yiri maya arrin kale ayaa jirto gabadhan aniga waan guursaday laakiin waxay ii tahay ilmahayga oo kale ilaa hadda sidaan u guursadan uma tegin waayo markaan ilaahay baa iga sii jeediyay waxay noqotay oo kale qof aan waxba naagaysan karin laakiin waxaan rabaa inaan ogaado sababta halkaasi ka jirto waayo hadda ka hor aan magaaladan xaas ku guursaday xaaskii 3 bilood ayaan isqabnay waan kala tagnay
kadibna taleefon iyo meel la iskaga soo xiriiray midna ma lahayn maadaama aysan ilmana ii hayn uurna aan ku ogeyna sidii ayaan isku kala hilmaanay waana kala tagna marka waxaa laga yaabaa gabadhan in ay tahay gabadhii inay xaaskayga ii dhashay walaalay runta ii sheega xaaskaygana adiga ayay magacaaga ayay wadatay inkastoo hadda aad tuqowday laakiin waa inaad isku egtihiin anigu waan arkaa anigu waan xasuustaa waagi markii hore wuxuu yidhi horaan waxba ma xasuusta laakiin hadda wax walba oo dhan waxaad moodaa in horteyda la keenay marka waxaan dhihi lahaa wuxuu yiri inaad runta ii sheegto calaata xaal maamadii runta ayay u sheegtay waxay tiri gabadhan adiga ayaa dhalay maamadiina way isku naxday way ogaatay magaciina ayihii wixii dhamka u sheegtay waxay tiri gabadhan aabeed waan ka qariyay waayo aniga waxaan rabay gabadhan inaan korsado haddaan sheegana waxaan isdhahayay uurka markaad dhasho gabadha ama kaa qaataa teeda kale anagu weji fiicanna kuma aanan kala tegin marka sidaas ayaan u qarsaday cideedii wixii dhanna waan aamusay meelaan kuu soo raadiyay ma lahayn aqoon xumadaas ayaana jirtay marka gabadhaadii waaye ayay tiri calaata xaal daawadayaal sheekada intaas ayay ku eg tahay odagii wuu ogaaday gabadha inuu dhalay ee gabadhiisii tahay laakiin dhibkaas tirada badan dalkeena Soomaaliya wuu ka jiraa waayo waxaa jirto inay dad badan oo Soomaaliya ay sida amal ku dhacday nimanka Soomaaliyeedna meeshay tagaan baday askari yihiin haday macallin yihiin haday dhakhtar yihiin meel kasta ay tagaan haday darawal yihiin inay naaga ku guursadaan kadibna aysan waxba ka ogeyn meesha ilmihii loo ay ku dhasheen uur in loo qaaday sidii dhaqsinaya qofkii ku kala tagaan marka sheekadaani waxaan ka qaadanaynaa cimri qaadasho inaan ilmaha la xoorin haddii naag la guursado la dabagalo la xiriiriyo inuu uur ku soo baxaa laga yaabaa midna waxaan u sheegayaan gabdhaha Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed cunug ay ayagu dhalaan in aysan aabahood ka qarin dhibaatadan oo kale ayaa dhacaysa lagamana yaabo cunug ah oo aabihiis uusan garab taagnayn gabar haday ahaan leed wiil haday ahaan lahayd maalinka mustaqbalkooda uu imaado ayaad ogaan doontaa dhibka iyo dhibaatada soo wajahayso qofkaas waayo ehelkiisii dadkiisa lagu xiro hooyo kasta dadku way iskuulsadaan way kala tagaan laakiin ilmaha iyo cidda ay ka dhashaan in la isbaro ayaan ugu boohin lahaa adinkana fikirkiina qaybta hoose ee videoga waad iigu reebi kartaan aniga ahaan nasteex ahaan sidaas ayaan soo jeedin lahaa hooyooyinka in ay mar walba ninka markay kala tagaan inay ilmuhiisa iyo cidiisa ee dooyinkeeda wixii dhan ay kala baraan hadda sidaas ayaa dhacday sidaas hadda nin aabihiis inuu gabadhiisa ku guursado laakiin Ilaahay ayaa wax walba ogaa oo waa kaas dad isku jinsiyaho oo isdhalay inaysan is aadeen si walba isku guursadaan meher walba la dhigo wax walba la waxeeyo guriga markay isku tagaan kii shaydaan ahaana Ilaahay uu ka saarayaa sidaas ayuuna Ilaahay ugu cadeynayaa in uusan ninkan u galmoon kari gabadhan waayo uu dhalay gabadhiisa uu dhalay waaye waxaan kaloo ka qaadanaynaa nimanka bariyahan la dhahayo gabareed ilmay dhaleen ay u galmoodeen in aysan ilmahaasi meher xalaal ku dhalan waayo meher xalaal haduu ku dhalan lahaa sidaan oo kale ayuusan u damceen asagoo og inuu dhalay ayuu hadana sii aado marka waxaan dhihi lahaa asaga markii hore ayay wax ka qaldanaayeen halkaas ayaa inkaga tagayaa wadna ku mahadsantihiin daawashada videoga meel walba joogtaan videoga sii share gareeya subscribe-ka like comment wax walba sidaad noogu xirantihiin aad iyo aad ayaan inkaga mahadcelinaynaa waa walaashii nasteex imdaar oo ina leh sidaas iyo nabadgelyo waa noo qisooyin kale iyo toddobaadka soo socda hadii Allah awood la ogolaado sidaas ayaa inkaga tagayaa nabadgelyo